بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون waxaa marka ugu horeysa tacsi u diraya dhammaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland si gaar ah qoyskii iyo eheladii uu ka geeriyooday gudoomiyihii gobolka Nugaal waxaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baryaynaa inuu naxariisti janno uu ka waraabiyo intii ku dhaawacmatana Ilaahay u boogadhayo runtii waa far argagixiso oo aad u fool xun oo aan marnaba la aqbali karin waxaan aad iyo aad uga xunnahay falka noocaasa inuu magaalada Garowe ka dhaco waa qadar eebbe waxaase Ilaahay idankiis rajaynaynaa wixii waxaa geystay iyo wixii ka dambeeyey in ay cawaaqibta ay leedahay arrintaas ay mutaysan doonaan Puntland waxaa lagu yaqaanaa dadkeeda iyo dowladeedaba inay amnigooda iyo danahooda ka shaqeeyaan waxaa ballan nagu ah inaan cirib tirno lana dagaalanno nooc kastoo argagixisa ay leedahay cabsi iyo baqdinna aysan gelin waxaan aad uga tiiraansannahay gudoomiyaha qaaliga ah oo runtii amniga muddo badan ka soo shaqeynayay markiisii horena ciidamada Puntland ka tirsanaa nin geesi ahaa tiisi baa gashay waan ka tacsiinayna waan kana tiiraansannahay laakiin namana cabsi gelinayso nagamana baajinayso inaan dadka noocaasa ciribtirkooda aan qayb ka ahaano waa aafo caalami ah oo adduunka dhan ka jirta gaar ahaan Soomaaliya xoog ku leh laakiin dhacdada xalay ka dhacday Garowe iyo dhacdooyinka Puntland ku soo noqonayo waa dhacdooyin runtii aragtidooda leh dadka reer Puntland waa dad dhiifoon laakiin waxaad moodaa in waqti lagu bixiyay in amnigooda iyo khalkhal la geliyo waxaan Ilaahay idankiis ka rajaynaynaa annaga iyo shacabkeena isku duuban inaan dadka noocaasa aan meel la yaqaan uga soo hori doono haddii Ilaahay idinka dhigo dowlad ahaan waxaan ballan qaadaynaa in aan tallaabo taas iyo kuwa la midkaba aan uga hortagayno kuna ciribteeno inaan ka howlgalno haddii Ilaahay idinka dhigo shirkii shalay dowladda ay yeelatay oo gudiyada la dagaalanka cudurka coronavirus iyo amniga labadaba aan ka wada yeelanay runtii waxyaabaha aan aad xogahooda u helayna waxay ahayd in dad sharwadayaal ah ay bartilmaamaysanayaan inay ka faa'iideystaan wanaagga iyo horumarka Puntland ay gaartay dadka xun shacabkan inay noqdeen shacab diidan dulmiga shacab diidan argagixisiga shacab isku duuban waxay muujinaysaa dadka noocaas oo cadaawadda noocaas wata xogahooda waan helaynay diyaar garowga dowladdu waa u jiray laakiin tay xala dhacday qadar dhacday bay ahayd laakiin waxay ahayd fal xogtiisana maalmaha kan la ogaa ee lagu raad joogay wixii idmanaabaa dhacay laakiin waxaan u sheegaynaa dadweynaha reer Puntland dowladooda inay diyaar u tahay in ay arrintaas ka shaqeyso waxaan iyagana ka codsanaynaa inay dowladda si dhow ula shaqeeyaan laamaha amniga go'aanada iyo war-saxaafadeedka aad ka dheehan doontaan warbaahinta waxaa ku soo baxay qodobo dhowr ah oo ugu muhiimsan yahay in dowladda hay-adaheeda oo dhan loo jiheeyo muddada soo socota inta laga hubinayo laba xaalo xaaladda cudurkan oo runtii isaga naftirkiisa amniga saldhig u ah oo khatar nafeed iyadana ku wajahan in si adag looga shaqeeyo sidii dadka amnigooda iyo badqabkooda jireed iyo caafimaad iyo nololeedba loo sugi lahaa waxa ay dowladdu qaadatay tallaabooyin ku aadan arrimahaas oo ugu muhiimsan in hay-adaha dowladda loo jiheeyo sidii ay uga hortagi lahaayeen xaaladaha amni xumo ee sababaya argagixisada iyo cudurka coronavirus labadaba waxay soo saartay awaamiir dhowr ah oo ugu muhiimsan tahay dadka si loo ilaaliyo naftooda in ay u hogaansamaadaan
tacliimaadka ama fariimaha ka soo yeeraya guddiga la dagaalanka coronaviruska oo ugu horeeya in ay ilaaliyaan isu soo baxyada iyo meelaha ay joogaan isu imaanshaha iyo waxyaabaha sababi kara caafimaad darrada lagu kala qaadi karo xanuunkaas. waxay dowladdu soo rogtay in la joojiyo dhaqdhaqaaqa oo dhan 6 maqribnimo ilaa iyo 5 aroornimo 1 bisha soo socoto wixii ka bilowda. waxaa mudaysan ilaa ay 15 abriil inta aan ka hubinayno xaaladda caafimaad ee geyigeena sida ay tahay. haddii loo baahdana kor ayaa loo sii qaadi doonaa. waxaa sidoo kaleeto ciidamada dowladda oo dhan heegan loo geliyey in ay amnigana sugaan. awaamiirta ku aadan coronaviruska iyo sidii dadka ay maaragtay uga wacyigelin lahaayeen ama uga shaqayn lahaayeen ama ula shaqayn lahaayeen hay-adaha ku shaqale iyagan in loo jiheeyo. waxay dowladdu qaadan doontaa insha allah tallaabooyin arrimaha ku saabsan oo ay ku xakameynayso dhammaan dhaqdhaqaaqyada isu soo baxyada. waxay abuurtay sanduuq ay ku shubtay dhaqaalihii ugu horreeyey ayna rajaynayso dadka muxsiniinta iyo dadka Soomaaliya caawiya in ay ku soo shubaan. maxaa yeelay khatarta xanuunkan uu leeyahay iyo awoodda dowladda Puntland ay leedahay runtii wax isku dhigma maaha. ilaa hadda waxaan abuurnay xarumo karantiin, waxaan diyaarinay tababaro shaqaale, waxaan howlgelinay hay-adihii dowladda oo dhan inay arrintaa ka shaqeeyaan. waxaan xakameynay dhammaan waxyaabihii sababi karay intii karaankeenna ah. laakiin sidaas ay tahay awooddeena dhaqaale weliba ay kooban tahay. waxaan rajaynaynaa iyadana dadka reer Puntland guud ahaan inay ka wada qayb qaataan, annagoo og dad fara badan oo reer Puntland oo dibadaha kasoo caawin jiray ruuxadooda inay duruuf adag ay ku sugan yihiin, guryahoodii joogaan, aysan shaqayn, dakhligooda uu isdhimay. culayskaas guud inaan u wada diyaar garowno. sidoo kaleeto waxaa si ku meel gaara loo joojiyey cashuurtii sales tax-ka ahayd oo ahayd inay bishan 1 bilaamato. sababahaas aan rajaynayna inuu koror ku dhaco sicirka annagoo ka taxadarayna. waxaan sidoo kaleeto ganacsatada ka codsanaynaa in aysan ku kordhin badeecadaha daruuriga ah iyo nooc kasta ay yihiin dadka uga faa'iidaysan fursadda. maxaa yeelay qofkii ganacsataa oo markaan oo kaleeto qof dhiban ka faa'iidaysta maalkiisa iyo xoolihiisa ilaahay barakeyn maayo. marka waxaan kula dardaarmaynaa inaysan ka faa'iidaysan fursadaha noocaas. waxaan sidoo kaleeto fariimaha iyaga ku jirta in kaydka Puntland yaalla loo hayo dadka reer Puntland. wixii kaleeto oo la soo waaridi karan in la soo waarido si dadka khatartan oo cabsi badan laga baqayo inay bilaha ay sii soconayso inay sii kordhaan ayaa waxaan rajaynaynaa iyadana in diyaar garow aada u adag laga yeesho. muhiimadda war-saxaafadeedka ayuu ku qoran yahay xooggiisu. waxaan rajaynaynaa hay-adaha amniga iyo hay-adaha dowladda dhammaan inay awaamiirtaas ay fuliyaan si habsami leh ay ula socdaan. dowladduna shaqadeedu xooggeedu wuxuu noqon doonaa guddiga arrimahaas ka shaqayn doona iyadana oo ah heer madaxtooye oo anigu aan guddoomin doono. waxaan si dhow ula socon doonaa ama shaqooyinka kaleeto oo dhan u joojinay inaan xoogga saarno amniga dadka muwaadinka reer Puntland si uu badqabkiisa ugu helo intii karaankayaga ah. dareenkaasaan la qaybsanaynaa. waxaan u sheegaynaa khatarta xanuunkan inuu sii siyaadayo. khatarta uu kusii badanayo afrikana baqdin badan laga qabo, khaasatan geeska africa. kaysas badan oo Kenya way kor bay usii kacayaan, Ethiopia kor bay usii kacayaan. xuduudaheenu weli siba isugu yaacsan yihiin. inkastoo Puntland ay goosatay in dadka deegaanada ka soo galaya la xanimo wixii iyadana maanta ka dambeeya. waxaan aada u rajaynaynaa dadku inay meelahooda ku nagaadaan. Soomaalida nin walba meesha uu joogo inuu ku nagaado ayaa ah sida ugu wanaagsan ee ka hortag loo samayn karo. socodka faraha badan in la iska daayo, kuwa dibadda jooga inay guryahooda joogaan, kuwa gudaha jooga inay joogaan, in wixii lagama maarmaan oo dhan ay dib u laalaan. annagoo duruufta dadkeena qadarinayna dad badan oo xoogsata ah waxaan rajaynaynaa iyaga oo quutul daruurigoodana raadsanaya laakiin inay aada u taxadaraan, xirtaan qofkii shaki iska qaba aaladda ama maaska afka lagu xirto, dadka inaan la salaamin, gacmaha in si fiican la isaga dhaqo, in si maaragtay taxadar leh loola dhaqmo xaaladan caafimaad, in guryaha iyo meelaha ciriirka iyo caruuraha iyo dadka dhan oo wada waayeelka ah inaan la isdhexgelin intii la kari karo, intii la kala fogaan karo.
kulamada aan laga maarmi karin in meelo furan lagu qabto, in meelaha xiran iyo dadku ay isku qaadsiin karaan ama isku dhow yihiin xilliga ay wada hadlayaan in aada looga taxadiro. waxaan bulshada reer Puntland dhammaan ugu baaqaynaa in ay gacmaha isqabsadaan, inay u diyaar garoobaan dagaal aan dhammaad lahayn oo mar walba taagnaanayo. maxaa yeelay horumarku mar walba wuxuu u baahan yahay sacyi iyo dagaal joogto ah, marba xeeladiisa leh. hadda waxaana haysta waa al-shabaab iyo coronavirus, labadaas ayaa waxay noo yihiin hortabinta koowaad ee dowladda Puntland iyo dadkeedu ay rabaan inay iska caabiyaan. siday hore ugu guuleysan jireen cadowyadan ayay ugu guuleysan doonaan haddii Ilaahay idmo. arrinta caafimaadku runtii walwal badan bay nagu haysaa, waa xanuun Ilaahay naguma keenay ka daran argagixiso kasta oo ay adag tahay xakameyntiisu. sida aan ka arkayno dalalka hadda waxa ka socda, waxaan arkaynaa dalalka qaybtood oo horumarsan oo dhaqaalahooda u kubacsan yahay ama awoodooda iyo imkaaniyaadkooda ay fiican tahay, in maalmaha qaybtood wax 1000 qof ku dhow ay maalintii dhimanayso. arrintaas runtii cabsi weyn bay na gelisay. waxay u baahannahay dadkeenna in aan hadda awoodda aan leenahay waxa waaye inaan digniin iyo ka hortag samayno. xaaladaas waxaan Ilaahay ka baryanaa inuu noo keenin, Ilaahay inuu naga hayo. aad baad u mahadsantihiin inaad fariimaha iyo tacliimaadka ka imaanaya dowladda inaad qaadataan baan rajaynaynaa haddii Ilaahay idmo. awaamiirtuna siday tahay loo fuliyo. ciidamada amniga iyo guddoomiyaasha gobollada iyo degmooyinka waxaan faraynaa dhammaan awaamiirta soo baxda si dowladnimo in loo fuliyo oo aan dib u dhac lahayn oo la iskula xisaabtami doono. dadka dowladda mas-uulka ah awaamiirtu waa inay siday tahay u fushaa, lagu khasbaa, danahoodana way wax danta ku jirto. ciddii diidana tallaabo sharciga waafaqsan laga qaado. aad baa u mahadsantahay. wasalaamu calaykum waraxmatullahi.